السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري سو دوادا كسو دوادا موجيول كلابات عشر في سكوات هدي الله يدمو موجيول كان عنو هذا دونا وحلو يقانو word formation أما قابك إري الصوب الله سمعين كرو يضو الاستعمال أيو دور هب مركا عشر كان دمات كيسا أرضي وحلقة ربعنا وودي يشونا أقون صدو noocyada word formationka aan ka hadli doono ilaa 5 nooc baan muuqaalkan uga hadli doonaa inuu apply gareeyo prefixeska oo ah kuwa erayada letterska wordka hore ka gala ama suffixeska letterska wordka gadaal ka gala compoundska marka laba la isu geeyo word oo si complete ah new meaning ay sameeyaan bendiskuna waxa weeyaan laba erayga oo kale in maaragtay bend lagu sameeyo oo qayb ka mid ah qayb kale lagu daro markaas new meaning uu sameeyo qaybahaas oo dhan oo faahfaahsan ayaan muuqaalkan uga hadli doonaa sidoo kale ardayga waxaa laga rabaa inuu awood u yeesho inuu build vocabulary for IELTS writing and speaking marka vocabulary buildingkana insha allah waxaan kula wadaagi doonaa steps aad new wordska u record garaysan kartid ayaan isaga kula wadaagi doonaa marka haddaan ku bilaabo aan toos u guda galno casharkeena word formation waxa weeye waa how English creates new words ma aha kaliya English luqadaha kale xataa uu noqon karaa waa sida loo sameynayo erey cusub tusaale hadda erey inoo yaalla haddii aan horey wax kaga darno markaas uu sameynayo new meaning waxaa la yidhaahdaa word formationka ama horey keliya maaha gadaal baa lagaga dari karaa laba erey baa laisku dari karaa ereygii baa qayb ka mid ah la soo reebi karaa si faahfaahsan slideska soo socdaan uga hadli doonaa ardayda marka wuxuu ka caawiyaa inay qiyaasaan macnaha samaysmaya sidoo kale ardayda diyaarinaya imtixaanka loo yaqaano international english language testing system scorekooda inay maaragtay kor u qaadaan ayuu ka caawiyaa taas waa introduction haddaan ku bilowno marka noocyada aan isticmaalayno new word marka la sameynayo waxaan isticmaali doonaa dhowr nooc waxaa ka mid ah prefixeska oo ah ereygii in horey wax lagaga daro letters horey lagaga daro suffix oo ah in gadaal lagaga daro compounding oo ah laba in la isu keeno blendingkii oo ah in la isu keeno laba erey mid ka mid ah inta wax laga reebo clipping oo ah in ereyga qayb yar oo ka mid ah lala soo haro iyo conversationka oo ah in infinitive lagu daro marka dhowrkaas nooc oo dhan ayaan uga hadli doonaa intaanan marka halkaas u gudbin waxaa jira wax la yidhaahdo rootska erayada oo ay tahay inaad fahantid intaanan u gelin linkigan waxaad ka helaysaa qaybta further resourceska referenceyada linkiyada la socda weeyaan marka tusaale hadda root wordska erayada waxaa jira qayb ka yimi Greek iyo qayb ka yimi Latin tusaale hadda erayadan waxay ka yimaadeen Latin ereygii marka halkan waxaa noo yaala Latinka ahaa halkaana waxaa noo yaala macnihii uu sameynayay qaybtaas kalena waxa inoo yaala waxa weeya ereygan laba tusaale oo laga soo qaatay tusaale hadda ereygan ambi macnaheedu waa both waa labo waa Latin word waa both buu noqonayaa macnihiisu waana erey root ah rootka marka haddii gadaal wax lagaga daro hadda macnayaashan oo kale buu sameynayaa tusaalahaan ambiguous oo ah madmadow kale ama ambidextrous oo ah dadka waxaa la yidhaahdaa labadooda gacmood ba isticmaala tusaale qof labadiisa gacmood si isku mid ah u isticmaala skillfully qof uu isticmaalaya ayaa la yidhaahdaa tusaalahaan aquagos waa water waa biyo aquarium ama aquamarine oo kale biyaha badda odia oo tuhiyar ah
audience iyo auditation oo macnaheedu ay tahay bandhig oo kale audience-na waa dadkii dhegeystayaasha oo kale bay noqonayaan ama dadka presentation markaad jeedinayso aad wax u jeedinayso bene good weeye macnihiisu benefactor oo ah maxaa la yidhaahdaa wuxuu noqonayaa qofka deeqsiga baa la yidhaahdaa benevolentina waxaa la yidhaahdaa qofka naxariista badan centi oo boqol ah century ama percenti marka waad arki kartaa ereygii fruit buu ahaa waxa lagu daray gadaal ayaa wax lagaga daray marka waxaan kaa rabaa halkan marka la joogo sourceskan waxaan rabaa siyaabaha uga faa'iidaysan karto waxaa ka mid a horta kuwani waa common latin rootskii halkan lagu listigareeyey halkanna waa common greek rootskii oo halkan lagu listigareeyey kuwan oo kale waa aragtaa hadda waxa weeye anthropo oo macnaheedu yahay rag ama bini aadam kale hadda tusaale ahaan anthropologist waa maqashay waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa dadka cilmi nafsiga bartay philanthropy waa samafalka waxaa maqashay philanthropic arm oo tusaale ahaan organization markuu jiro waxaa la yidhahdaa qaybta u qaabilsan samafalka ama bulshadii inay wax ku celiyaan oo kale marka waa rootkii oo greek word laga keenay ayaa waxaa lagu daray gadaal ayaa wax lagaga daray oo suffix ah marka wuxuu sameynayaa new meaning erayadan markaa rabtid tusaale ahaan waxaan oo erayaa one by one inaguma sharixi doono laakiin waxaan kaa rabaa waa jir insha allah classeska qaybtood waa idinkula wadaagi doonaa list waa samayn doonaa laakiin before that list waxaan rabaa inaad horta numberku isku daydid qaab marka aad ereyada noocaas oo kale markaad listigaas oo kale aad rabtid inaad baratid oo ereyadan aad garaysato qaabkaad u qoran lahayd istaraatiijiyada raaci lahayd waxaan kuu sheegi karaa anigu inta badan aan raaco waxa weeyaan afar step afartaa step waxa weeyaan stepka koowaad waxaad ereyga waa qaadaysaa very simple waxaad gelinaysaa translate-ka soomaaliga oo gashanaysaa macnihiisa originalkaasi aad u ogaatid tusaale hadda waxay noo soo qaataa ereyga waxay noo soo qaataa ereyadan erey ka mid ah noo soo qaad very simple waxay noo soo qaataa aan soo qaadano ereygan oo kale aan soo qaadano dictation step one waxaa weeye Somali meaning ba keli horta marka ugu horeysa wuxuu soo saaray qaylo dhaan dictationku sida caadiga waa yeeris ya qaylo dhaan buu soo saaray okay intaa ha uga harin qaad linkiyadan dhan waa helaysaa linkigan casharkeena hore buu ku jiraa module-ka hore kan naftarkiisana waa ku dari doonaa okay waxaad gelinaysaa Cambridge oo dictionary-gan maaragtay Cambridge ko English ka geli okay muxuu yiri dictation waa the act of saying something for someone else to write down soo maaragtay wuxuu ku yiri waa qofka inuu aad u yeerisid wixii uu qori lahaa very simple waa ereygii waxa ugu habboon ereyga yeeris baa ugu habboon af Soomaali ahaan intaa markaad samaysid step one waa Soomaaliga waa inaad ogaatid Soomaaligaas laakiin kalsooni 100% waa wada siin waxaad gelaysaa kan Cambridge-ka sidoo kale xoogaa macnihii inaad maaragtay sii fahantid buu kaa caawinayaa this one baana aan ku siinayaa kalsoonida ugu badan definitionadan inaad qabtid that's step 2 waaye Cambridge-ku step 3 maxaa weeye step 3 haddii ereyga aad fahantay oo 100% fahantay record garayso waxay isticmaashaa Quizlet oo casharkeena ku jiray aan uga hadalnay casharkeena waxa weeye saddexaad ee module-ka koowaad waxa weeye Quizlet-ka aan ku sharaxnay qaabkaan u sharaxnay iyo qaabka kuwan lagu samaystay information-kaas oo dhan muuqaal aan ka diyaariyay waa isla linkigiisa halkaas ka helaysaa marka waxa weeyaan wakaas halkaa markaad joogtid
waa stepkii koowaad stepkii labaad stepkii saddexaadna waxaa weeye inaad record garaysato markaas recordingkaasaa waxaa gashanaysaa dee collocation hadduu leeyahay collocations oo kale hadduu leeyahay maxaa la yidhaahdaa had sentence haddaa gashanayso waxaasoo dhan oo inaad samaynaysid word formska inaad rootkiisii iyo waxaasoo dhan aad qoranaysid marka waxa weeyaan waa step 3 step marka haddaadan fahmin step 4 waa maxaa la yidhaahdaa step waxa weeye haddii aad weyday tusaalahaan haddaadan ereyga kaba soo qaad ereyga soomaaligiina waad gelisay cambridgekiina waad gelisay still ma aadan fahmin waxaadan fahmin marka haddaad record garaysato it's not good waxaan kuu soo jeedinayaa marka maadaama koorsadan aad ku jirtid oo aad casharka annaga nala qaadanaysid inaad noo soo dirto aan isla fiirino ereygaas markaas waxa weeye the most appropriate meaning aan siino aan idhaahno aan definitionskiisa fiirino meelo kala duwan gelino aan dhahno macnahaasuu 100% qaadan karaa marka waa idinku dhiirigelinayaa inaad soo dirtaan ereyada tusaale ahaan aad markaad intaasoo dhan samaysay kuu suurtoobi waaye marka haddaan sii wado casharkeennii aan dul maro prefix waxaa la yidhaahdaa added at the start ereyga bilowgiisa waana letters maaha words letters weeye waa letters lagu darayo ereyga bilowgiisa baa waxaa la yidhaahdaa prefix halka qodob ay tahay inaa ogaatid waxa weeye changes meaning wuxuu bedelaa macnaha laakiin ereyga ma bedelo word classkiisii ereygu hadduu ahaa tusaale adjective buu ahaanayaa oo ma bedelayo hadduu noun ahaana nounkiisii buu ahaanayaa word formkii ama word classkii ma bedelayo laakiin muxuu bedelayaa its meaning tusaalayaalaan soo qaadano happy baa tusaale waxa la geliyey prefixka an prefixku waxa weeyaan prefixkan macnihiisu waxa weeyaan inta badan waa diidmo ama sida caadigaaba waa diidmo macnaha waa negativeka ereygan buu noqonayaa tusaale ahaan happy unhappy faraxsan aan faraxsanayn waa its opposite ereyga wuxuu keenay oppositekiisa laakiin ma bedelin ereygu nooca uu ahaa ma uusan bedelin oo maaragtay sifadii ereygu ahaa kama uusan bedelin do waxaa la geliyey prefixka re marka haddii la geliyo prefixka re na inta badan waa again wuxuu la macno yahay waa mar labaad redo rewrite okay waxa weeye ereygii ficilkii inaad dib u samaysid marka redo bay noqotay do action waxa la yiraahdo verb-ku ahaa kama uusan bedelin laakiin muxuu bedelay macnihii macnihii opposite-kiisii buu noqday legal buu ahaa waxa la geliyey prefixka illegal buu noqday marka sharci daro waa its opposite so halkaasna waxaan rajeynayaa inaad qaybta prefixkana inaad fahamtay baan rajeynayaa sorry qaybta suffixka haddaan u nimaadno suffixku waxaa lagu daraa inta badan ereyga dhammaadkiisa wordka marka aad haysatid dhammaadkiisa ayuu dhacaa halkaa markaad prefix suffix dhigtid often changes word class marka kii hore muxuu uga duwan yahay kii hore wuxuu bedelayaa macnaha kaliya laakiin kan muxuu bedelayaa word classka tusaale ahaan hadda waxaan haysanay teach oo ah bar teach markaan halkaan joogno waa verb laakiin muxuu noqday teacher wuxuu noqday noun macnaha waxaa bedelmay noocii ereygu formkii markii hore uu ahaa ayaa isbedelay happy happiness happy buu ahaa muxuu noqday happiness oo farxad ah development marka waxa isbedelay waxa la yiraahdo classkii ereyga ayaa isbedelay suffixku marka classku bedelaa prefixkuna wuxuu bedelaa meaning marka waa inaad fahamtid marka qaybta haddaan nimaano compoundingka waxa weeyaan laba erey baa la isu keenayaa laba erey baa la isku darayaa new meaning bay samaynayaan tusaale sun waa qorax flowerna
waa ubaxa sunflower buu noqonayaa waxa weeyaan tusaale note buu ahaa book baa lagu diray notebook buu noqday waa noun laba noun weeye inta badan airport football laptop tusaalehaan hadda air iyo porti buu ahaa kadibna waxay noqotay airport foot iyo ball football laptop rajaynayaa kaasna inaad compoundingkan ila fahamtay kan blending waxa weeyaan waa mixing parties of two words laba eray qayb ka mida inaad isku dartid tusaale ahaan smoke waa qiiq fogna waxa weeye ceeryaamada smoke waa soo baxay oo ah new word oo ah inta badan smoke waa qiiqa weeyaan isaguna breakfast plus lunch quraac iyo qadaa la isku daray maxay noqotay branch waxaa la yidhaahdaa markaad barqadii soo kacdo oo kale xilli barqaa inta soo kacdid aad quraac cuntid ama quraac lama oran kare xilli barqaa intaad soo kacdid oo kale inaad markaas maaragtay wax cuntid waxa marka xilligaa cuntid xilliga qadadana maybe waxaa la kaarsan 1 saac xilliga quraacdana waxaa lasoo dhaafay dhowr saacadood marka mana qadaynayso waa wax u dhexeeya qadadii iyo quraacdii iyo branch baa la yidhaahdaa okay motor plus motelku waxa weeyaan inta badan waa hoteelada saaran wadada oo kale ama meesha wadada laga helayo clipping waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa ereyga qayb yaroo ka mid ah inta badan waa shortening the words waa ereygii in lasoo yaraysto oo tusaale ahaan laga wahsado ereygii dheeraa oo kale inta laga wahsado qayb yaroo ka mid ah lasoo qaato tusaale ahaan advertisement xayeysiis ad baa laga soo qaatay inta badan waa aragtay ads waa aragtaa meelahaas markay kaasoo horbaxaanin adoo iska daawanayo kale xayeysiisi inay kaa hor yimaadaan adskaas waa advertisement laakiin lagu sameeyey clipping telephone buu ahaa intii damaa lasoo qaatay bes waxaa laga dhigay phone influencer buu ahaa waxaa laga soo qaatay waxaa laga soo qaatay dhexda marka halkaa waa 3 tusaale waxaa laga soo qaadan karaa ereyga bilowgiisa waxaa lasoo qaadan karaa dhammaadkiisa waxaa lasoo qaadan karaa dhexdiisa 3daas qaybood baa noqon karaa oo macnuhuna isma bedelayo laakiin waxa isbedelaya qoraalka isbedelaya qaabku ereyga u qornaa waxay noqonaysaa qaab kooban hadda inuu noqdo qaybta shanaad oo ereyga cusub loo samayn karo waxaa ka mid ah conversation waxa loo yaqaan ama conversion waxa loo yaqaan okay conversionku waxa weeyaan waa word changes function without changing the form ereygii baa waxaa la bedelayaa shaqadii iyadoo aan la bedelayn formkii tusaalahaan hadda exampleskan baan soo qaadanaynaa email waa email waana noun sida caadiga ah emailada emailka caadiga ah haddii la yidhaahdo to email u qor email macnaheedu waxay tahay waa verb maxaa marka isbedelay waxa isbedelay waxa la yidhaahdo dawoodkii maaragtay shaqadiisii baa isbedeshay laakiin isaga formkiisii isma bedelin ya hadda email keligii ma noqon karo waxa la yidhaahdo verb ma noqon karo email only verb ma noqon karo it cannot be a verb laakiin to marka lagu daro muxuu noqonayaa to plus email ba waxay noqonaysaa verb marka shaqadii ereyga baa la bedelay very simple ereygii formkiisii lama bedelin ya water to water plants dhirta inaad waraabisid to water waa noun to water laakiin marka la yiraahdo oo labadaa la isku qabto waxay noqonaysaa verb google to google ya marka iyaduna waxa weeyaan waa qaabkaas ereyga shaqadiisii baa la bedelayaa laakiin lama bedelayo formku u yaalay oo ereygii ahaa email oo nounka ahaa lagama dhigi karo verb laakiin marka lagu daro to wuxuu noqonayaa verb water ereygii ahaayoo nounka ahaa lagama dhigi karo verb laakiin to marka la raaciyo waxay noqonaysaa verb halkaa waxaan rajeynayaa iyadana
inaad ila fahantay ayaan rajaynayaa marka insha allah waxaan kaa rabaa haddii alla idmo insha allah processkan inaad raacdid soorsiyada haddaan ku hayo waxaa ka mid ah kan oo source runtii muhiim ah qaybtan oo kale hadda waxa weeye waa iska introduction waa common rootskii waa common Greek rootskii sorry kuwa hore waa Latin kuwan waa Greekgii kadibna wuxuu sharxayaa prefixkii common prefixkan oo dhan buu soo qaadanayaa common suffixeskan buu soo qaadanayaa xataa muuqaalo ayuu leeyahay oo sharaxaad ah waana source maaragtay waa free linkigiisa anoo xigtay oo maaragtay sameeyey waxaa la yidhahdo reference iyo integrity station labadaba waxaad ka helaysaa qaybta further resourceska kan oo kale isagana waa ku anfacaya meaningka word formation maxaa la yidhaahdaa noocyadiisa tusaalayaal baa isagana ka helaysaa waa kan marka labadaas source anoo sameeyey integrity station iyo reference labadaba waxaad ka helaysaa qaybta further resourceska trickska aan ku sheegay ama stepska aan ku sheegay markaa new word record garaysanaysona koorsadana maadaama ay tahay koorso waxa weeyaan aan ku baranayno vocabulary-ga oo strategies iyo waxaas aan maaragtay apply garaynayno waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad maaragtay waa inaad action samaysid oo ereyada aad record garaysatid ereyada maaragtay stepskaas hadda aan kuu sheegay aad raacdid marka hore Google Translate geli marka labaad geli maxaa la yidhahdaa Cambridge still haddaa garan weyda annagana soo weydii intaas kolay erayadaa garan waayaysid waa iska fahmayaa dee waxay noqon karaan erayo kooban inta ugu badan saan fahmayo dee haddeer wax kasta way fudud yihiin koorsadaana qaabka ingiriishka aad ugu baran kartid si digital ah baan uga hadlaynay marka waxaa lagaa rabaa oo kale dee kolay way u fududahay qofka hadda inuu ereyga macnihiisa ogaado few words baa kolley isbedeli kara saan rajaynayo adigu any word oo maaragtay aad garan weydid waa nala wadaagi kartaa markaad intaa gelisid oo kale annaga hataa haddii aan maaragtay macnihiis la analyse garano hal macno ereyga aan siinay waxaan u dhiirigelinayaa inaad isticmaashid flashcardska aad maaragtay ereyga geliso halkaa ku record garaysato imtixaan iskaga qaado ereygaas 100% aad baratid strategiskaasna aad raacdid at the end of the course waxaan rajaynayaa inaad awood u yeelanayso qaybta vocabulary-ga oo ah runtii qaybta ugu muhiimsan marka laga hadlayo luqadda barashadeeda inaad meel iska saari doonto marka aad baa mahadsantihiin casharkeena maanta intaas buu ku eeg yahay asalaamu calaykum